Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhow daawade kuna soo dhow cashar cusub oo grammar ah. Waxa aan soo dhiganay noun. Maanta waxa aan bilaabanaa pronoun. Magacuyaal. What is the pronoun? Waa maxay magacuyaal. Pronoun magacuyaal is a word waa kelmad taasoo we put aynu dhigno in the place measure of the noun magaca to avoid say nooga ilaaliso the repetition soo noqnoqodka of the noun ee magaca in the sentence ee jumladda. Pronounku is a word waa kelmad taasoo we put aynu dhigno in the place measure of the noun magaca to avoid say nooga ilaaliso the repetition soo noqnoqodka of the noun magaca in the sentence isla jumladda. Haddaba bal eegno. Look this sentence kan eeg. Xasan told me waxa uu sheegay that Xasan in Xasankaasi was going inuu tagayo to schoolka. Xasan told me waxa uu sheegay that Xasan in Xasankaasi was going inuu tagayo to school. This sentence jumladani is not correct ma aha sax because maxaa yeelay we repeated waxa aan soo noqday the noun magaca Xasan twice laba jeer. oo kan wuxuu laba jeer soo noqday Xasan baa ii sheegay in Xasan tagayo schoolka. Xasan laba jeer buu soo noqday, marna waa kan marka waxa la doonayaa in halka hore Xasan lagu isticmaalo Xasan kan dambe soo noqonaya. waxaad moodaa Xasan baa sheegay in Xasan tagayo schoolka. Xasan kale inuu ka warramayo la moodayaa, laakiin imika qofkani wuxuu rabay inuu sheego waxaanay Xasan baa ii sheegay inuu tagayo schoolka, laakiin sentence kan imika uu qoran yahay Xasan waxa uu sheegay in Xasan kale uu tagayo schoolka. way noqonaysaa hadii la micnaayo imika, laakiin marka waxa loo isticmaalayaa oo lagu saxayaa pronoun. marka sentence kani ma aha sax maxaa yeelay waxa laba jeer soo noqday magaca Xasan. we must waxaan odhanaa waa inaynu nidhaahno Xasan baa told me ii sheegay he in isagu was going inuu tagayo to schoolka. Xasan baa ii sheegay in isagu schoolka tagayo. ayaa isla raba weeyaan waa san. marka we must use waxa aynu isticmaalnay the noun magaca Xasan waxaynu isticmaalnay for the first time waqtigii ugu horeysay marka ugu horeyso ma isticmaalnaa Xasan, marka dambe halkiisa waxaan ku bedelanaa magacuyaal. and then dabadeed we must put waa inaynu dhignaa the pronoun magacuyaalka he waa magacuyaal in the place measure of the second Xasanka labaad. halka Xasanka labaad ku jiro waa inaynu he dhignaa. marka imika baleeg kani waxa haddaynu micnayno wuxuu noqonayaa Xasan wuxuu ii sheegay in Xasan uu tagayo schoolka. Xasan baa ii sheegay in Xasan schoolka tagayo. waxaad yara moodaa in uu khaldan yahay. waxa markaa uu noqonayaa in Xasan kanaad sheegaysaa uu Xasan kale u sii sheegay, laakiin Xasan haddii halkiisa lagu isticmaalo Xasanka labaad halkiisa haddii lagu isticmaalo magacuyaalka he pronounka he waxa ay noqonaysaa Xasan wuxuu ii sheegay inuu isagu tagayo schoolka. waana sida saxda ah. marka pronounku muxuu noo qabtaa? pronoun magacuyaalku is a word waa kelmad taasoo we put aynu dhigno in the place measure of the noun magaca to avoid si ay nooga ilaaliso the repetition soo noqnoqodka of the noun magaca in the sentence si ay nooga ilaaliso soo noqodka magaca ee isla jumladda. pronounku waa kelmad aynu dhigno meesha magaca si ay nooga ilaaliso soo noqnoqodka magaca. see nooga ilaalinaysaa? waxay nooga ilaalinaysaa Xasan told me Xasan waxa uu sheegay that Xasan in Xasankaasi halka Xasanka labaad repetition kala sheegaya soo noqnoqodku waa Xasan magacan soo noqnoqonaya. halkiisa waan lagu isticmaalaa pronoun oo he saasina sax ku tahay. aan ka gudubno. there are waxa jira 4 different kinds of pronoun. waxa jira 4 kala duwan oo nooco pronouns ah. waxayna kala yihiin personal pronoun, demonstrative pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns. mid walba halkiisa aynu ku taganaa. marka aynu ka horeyno personal pronounska. there are waxa jira they are iyagu waa personal pronouns are the pronoun waa magacuyaal we use aynu isticmaalno for persons dadka and they are waxayna yihiin personal pronounsku
they are iyagu waa the pronouns magacyaalada halkaa s baan ka tegay we use aynu isticmaalno for persons dadka and they are waxayna yihiin personal pronouns waa magacyaalada aynu dadka u isticmaalno dhan magacyaalada aynu dadka u isticmaalno waxaa kamid ah he isaga halkii aad ka oran lahayd cali isaga un baad oranaysaa ama kani haye aan ka gudubno waxayna yihiin waxa jira magacyaalo kala duwan waxaana aan ugu horeynaynaa personal pronoun kuna waa magacyaalka aynu u isticmaalno dadka waxayna yihiin I aniga waa magacyaal halkii magaca la dhigayaa oo anigoo xasana ama cabdilaahi ah aniga waa magacyaal aniga ii taagan he isaga oo cali ah ama qof kale ah ama xasana haye she iyada haye it isaga you adiga we anaga they iyaga haddaba intaynu sii kala qaadqaadanaa waxaa loo qaybiyaa haddaba intan magacyaaladan aanay personal pronounska oo waa first person waxaa la odhanayaa horta saddex baa loo kala qaybinayaa first person second person iyo third person hadlaha koowaad qofka koowaad ee hadlaya first person la odhanaya ka hadlaya ka lala hadlayaa waa second person oo waa qofkii labaad ee wax loo sheegay lala hadlayay first person ku la hadlayay third person ka saddexaad waa ka laga hadlayo ee markaa qof uu ka hadlayo qofna uu sheegayo anigu imika waxaan ka hadlayaa cashar baan ka hadlayaa waxaan unahay first personkii oo kii hadlayay baan ahay adigana aan kuu sheegayo casharkani waxaad noqonaysaa second person qofkii labaad ee lala hadlayay ama dhegeysanayay third personku muxuu noqonayaa haddaan nimkaan cashar ka hadlaynin qof oo kale ka sheekaynayo oon qof kaaga sheekaynayo maanta waxbaan kaaga sheekaynayaa muuse biixi madaxweynaha somaliland anigan ka hadlayaa muuse biixi waxaan ahay first person oo kii ka hadlayay baan ahay second personkii muxuu noqonayaa adigan aan kula hadlayo ayuu noqonayaa third personkii kii saddexaad laga hadlayay muxuu noqonayaa dee muuse biixi buu noqonayaa kii laga hadlayay waad la fahantaan filayaa marka anigu waxaan ahay the first person oo waxaan ahay singular waxaan ahay keli oo plural ma jamac ma yihiin horaan u soo dhigay singularka pluralka we waa annaga koox baan nahay waan wada soconaa waxaan leenahay annagu waa jamac laakiin waa first person annagii weeyaan dee annagii baa kii hor hadlaya annaga hadlanaa haddaan anagu hadlano oon koox oo kale nahay ama galaaskaygaaba hadlanaba waxaan noqonaynaa kii koobaad hadlayay oo jamac ah ileen qof keliya maahe haye aan ka gudbo you aniga kula hadlaya adigan kula hadlayaa adigu maxaad noqon kartaa waxaad noqon kartaa dee kii lala hadlayay anigaa kula hadlaya adaanan kula hadlaya adu waxaa tahay kii lala hadlayay marka waxaad noqonaysaa second person marka youdu marna jamac way samaysaa jamacna way noqon kartaa kelina way noqon kartaa marka you waa second person waa kii lala hadlayay singular kelinimo wuu noqon karaa plural jamacnimona jamacna wuu noqon karaa he isaga she iyada it waa third person saddexdaasiba waana singular waana keli waayahay anigan ka hadlaya anigu adan kula hadlayaa anigu waxaan ahay first person adigan kula hadlayaa you waxaad tahay second person he isaga ama she iyada ama it ayaan ka hadlayaa intaasan ka hadlayaa waxay noqonayaan third person kii laga hadlayay ee saddexaad waana singular oo iyada
isaga waa keligayaan. Hay. They iyaga waxaan ka hadlayaa iyaga. Waxaan ka hadlayaa adaan kula hadlay anigu. I baan waxaan ahay first person. You baan adaan kula hadlayaa waxaad tahay second person. They iyagaan ka hadlayaa waa third person. Waana jamac. Iyagaan ka hadlayaa oo waa jamac. Waad fahantaan filayaa. Intaa haddaan ka gudbo taas sharax kale uma baahna. Waxaa jira subject and object personal pronouns. Subject-ku waa kaanay wax sameeya. Object-kuna waa kay wax lagu sameeyo. Subject-ku waa ka wax sameeya. Object-kuna waa ka wax lagu sameeyo. Hay. Marka waxaa jira subject ku wax sameeya iyo object ku wax lagu sameeyo. Marka subject-kii kii wax sameynaya wuxuu noqonayaa I am going to school. Aniga iskuulkii tagaya. Marka marka ay subject tahay sida lagu garanayo sentence ku jirto waan xagga dambe ka sheegi doonaa. I waa subject. Markay object tahay aniga wax ugu dhaceen waxay noqonaysaa me ay isku bedelaysaa kii wax ku dhaceen yahay. Isaga waa subject. Marka uu object yahayna waa him buu noqonayaa. She waa iyada. Herna waa iyada oo markay wax ku dhaceen. It waa isaga. It iyadu isma bedelayso. You-na isma bedelayso. We annaga wax sameynay. Galaaskii baan galaas kalaan laynay. Arday kalaan laynay ka soo qaad tusaale ahaan. Annagu waxaan noqonaynaa kunii wax sameeyay falkaa ku sameeyay. Hay. Annagaa lana laayay. Galaas kalana laayay. Maxaa noqonaynaa as bay noqonaysaa weedii. They iyaga. Them bay noqonaysaa iyaduna markay iyagoo kale. Waayahay. Aan ka gudubno si lagu garanayaan garanaa. Subject kuwa subject-ka wax sameeya. Pronouns-ka subject-kii waxa ay ka soo hordhacaan verb-ka. Verb-ka ka soo hordhacaan ama ficilka ka soo horeeyaan. Hay. Tusaale ahaan I oo kale waa aniga. Called Xasan. Aniga u yeedhay Xasan. Verb-kii waa maxay? Waa called. I-na waa maxay? Waa subject pronoun. Xasanna muxuu noqonayaa markaa? Dee kii uu ku dhacay object-kii buu noqonayaa. He isaga. Called Xasan ayaa Xasan u yeedhay. He waa maxay? Waa kii subject pronoun waa kii wax sameeyay. Yeedhistan sameeyay. Yeedhistanna waxa weeyaan waa verb-kii waa ficilkii. Marka subject pronouns waxa ka soo dhacaan verb-ka. She iyada. Called Xasan ayaa Xasan u yeedhay. You adiga. Called Xasan ayaa Xasan u yeedhay. We annaga. Called Xasan ayaa Xasan u yeedhay. They iyaga. Called Xasan ayaa Xasan u yeedhay. It isaga. Called Xasan u yeedhay. Object pronouns came after waxa ay ka daba dhacaan verb. Kuwa object waxa ka daba dhacaan verb-ka. Tusaale ahaan me Xasan baa called ii yeedhay me aniga. Xasan baa aniga ii yeedhay. Xasan baa called u yeedhay him isaga. Xasan baa called u yeedhay her iyada. Xasan baa called ku yeedhay you adiga. Xasan baa called noo yeedhay us annaga. Xasan baa called u yeedhay them iyaga. Hay. Kuwii hore waxay ahaayeen waxa soo horeynaya subject pronoun-ka ka wax sameeyay waxaana dambeynayay waxa soo horeynaya ka wax sameeyay oo ka soo horeynaya verb-ka oo pronouns-ka ka soo horeynaya verb-ka.
laakiin imika pronoun-ka ka dambeynaya verb-ka oo kii wax lagu sameeyay haddaan dib u yar wada noqono pronoun-ku is a word waa kelmad taasoo we put aynu dhigno in the place meesha of the noun magaca to avoid so aan nooga ilaaliso the repetition soo noqnoqodka of the noun magaca in the sentence ee jumladda. Subject pronouns-kuna came after waxa ay kasoo hordhacaan the verb-ka. Tusaale ahaan, she iyadaa called u yeedhay Axmed iyadaa u yeedhay. Axmed iyadaa u yeedhay. She waa subject pronoun. Called way kasoo hordhacday. Sidaa darteed waxaan odhanaynaa waa subject pronoun. Object pronouns-kuna waxay ka daba dhacaan verb-ka. Axmed halkan Axmed baa called u yeedhay her iyada. Her waa pronoun. Axmed iska daa isagu waa noun. Her waa pronoun. She-na waa pronoun. Her Axmed baa called u yeedhay her iyada. Iyadan yeedhistu ku dhacday waxaad ku garanaysaa inay object pronoun tahay called-dan her-ta ayaa ka dambeysa. Subject pronouns-ku waxa ay mar walba kasoo hordhacaan verb-ka oo she way kasoo hordhacday called oo verb ah. Object pronouns-kuna waxa ay ka daba dhacaan verb-ka oo called-dan iyo her-tan way ka daba dhacday called.